Dinnada Islaamka ayaa i baray in fursadda ugu weyn ee si aan jannada u aado ay tahay inaan sameeyo camal wanaagsan. Laakiin ma garanayo inaan sameeyo camal wanaagsan oo igu filan si aan Ilaahay ugu raaligeliyo. Camalka wanaagsan ee aan sameynayo salaada, bixinta sadaqada iyo soonka waxyaalahan ma i badbaadin karaan? Tan waa su'aal fiican. Diin kasta oo adduunka ka jirta waxay isku daydaa inay xal u hesho dhibaatada dembiga, iyagoo leh camal wanaagsan waa in la sameeyo. Laakiin su'aasha aad weydiisay waa camalkaygii wanaagsanaa ma i badbaadin karaa? Su'aashan waxaan uga jawaabi doonaa laba qaybood. Muxuu Ilaahay kaaga baahan yahay si aad jannada u gasho? Shuruudahan ma xajisay? Marka hore, Ilaahay wuxuu kaaga baahan yahay si aad jannada u gasho. Wuxuu dalbanayaa adeecid kaamil ah oo sharcigiisa ah si aad janno u gasho. Kaliya xaqnimo kaamil ah ayaad ku raali gelin doontaa Ilaaha xaqa ah. oo markii Ilaah sharcigiisa ku soo dejiyay Nebi Muuse 3500 sano ka hor wuxuu ku yidhi haddaad adeecdaan Rabbiga Ilaahiina barakooyinkan oo dhammu way idinku soo degi doonaan. Sidaas oo kale markii nin dhalinyaro ah oo taajir ah Ilaah weydiiyey waa maxay camalka wanaagsan si aan u sameeyo janno u galo si aan nolosha weligeed u lahaado. Markaasaa Rabbigu ku yidhi haddaad nolosha aad gashaan amarada xajiya. Haddaba haddii shuruudaha nolosha weligeed waa adeecid kaamil ah oo sharciga Ilaah ah. Waa maxay sharcigan? Waa sharciga akhlaaqda ee Ilaah wuxuu sharcigan qalbigaaga ku qoray. Sidaa darteed uma baahnid inaad sharcigan akhrisato si aad u fahamto. Sida rasuulku yidhi, waayo markii quruumaha aan sharciga lahayn dabeecadda ay sameeyaan waxyaalaha sharciga, iyagu waa sharci iyaga u gaar ah. Inkastoo aysan sharciga haysan, waxay muujiyaan in shuqullada sharciga lagu qoray qalbigooda. Sidaa darteed, xukunka Ilaah wuxuu ku salaysan yahay sharcigiisa, wuxuuna kaa dalbanayaa inaad si fiican u adeecdo sharcigiisa si aad u gasho jannada. Sida dowladdu ay u leedahay sharci oo in aad si xor ah dalka ugu noolaato waa in aad sharciga ilaalisaa. Sidoo kale waa in aad si kaamil ah u adeecdo dhammaan amarada si aad jannada u gasho. Haddaba su'aashu waxay tahay, miyaad xajisay sharciga Ilaah? Waxaan u isticmaali doonaa dhowr ka mid ah amarada Ilaah si aad uga jawaabto su'aashan. Amarka 7 wuxuu leeyahay waa in aanad sinaysan. oo markuu Ilaah amarkan sharaxay ayuu yidhi nin walba oo qof dumar ah damac u eegaa durba qalbigiisu ka sinaystaa. Sidoo kale amarka 6 wuxuu leeyahay waa in aanad dilin. oo markii Ilaah sharaxay amarkan wuxuu ku yidhi mid walba oo walaalkiis u cadhoodaa wuxuu galabsadaa xukunka. Waxaa loo jeedaa haddii aad weligaa ka cadhootay qof waad dishay. Sidoo kale amarka 1 wuxuu leeyahay aniga mooyaane ilaahyo kale waa inaydaan lahaan. Ilaah wuxuu ina amray inaan isaga ka jeclaano qalbigeenna oo dhan iyo nafteenna oo dhan iyo xooggeenna oo dhan. Haddaba haddii aad weligaa jeceshahay wax ka badan Ilaah waxaad caabuday sanamyo. Haddii aad jeceshahay lacag, dumarka, moobilkaaga ama xataa naftaada in ka badan Ilaah waxaa loo yaqaan sanam caabudid Ilaah hortiisa. Waa dembi aad u daran inaad wax ka jeclaato Ilaah. Sidoo kale Ilaah wuxuu yidhi waa in aanad been sheegin. Haddii aad been sheegtay waxaad jebisay amarka Ilaah. Waan soo koobayaa Ibraahimow, waad ku guuldarraysatay inaad amarada Ilaah ilaaliso. Waxaa loo jeedaa camalkaaga ma fiicna. Sidaas daraaddeed camalkaaga kuma badbaadin doono. Maxaa yeelay Ilaaha quduuska hortiisa camalkaagu waa ku shar. Ereyga Ilaah wuxuu leeyahay kulligeen waxaynu noqonnay sidii mid nijaas ah oo camalkeenna xaqa ah oo dhammuna
waxay la mid yihiin dhar wasakh ah. rasuul bawlos wuxuu yidhi mid xaq ahu ma jiro midnaba, mid wanaag falaa ma jiro midnaba. wuxuu ilaahay kaaga baahan yahay si aad jannada u gasho xaqnimo kaamil ah. shuruudahan ma xajisay? maya. sharciga ilaah waa sida mishiinka shaybaadhka oo kale. inkastoo aad u malaynaysid inaad caafimaad qabtid, waxay ku muujinaysaa inaad xanuunsan tahay iyo inaad dembiilo tahay iyo inaad u baahan tahay badbaadiyaha si uu kaaga badbaadiyo dembiyadaada.